السلام عليكم. waxaan bishaaro yar u wadaa walaalahiga muslimaadka ah. jikada ayaad ku jirtaan, waad gubanaysaan, waad kululaanaysaan, waad silcaysaan idinkoo sooman. haddaba bishaaradan idin wada waxay tahay walaalahiga muslimaadka ah, khidmadda aad u khidmeynaysaan walaalihiina muslimiinta ah, ama ha noqdo walaalka ama ina adeerka ama adeerka macan ama abtiga ama ina abtiga ama aabaha ama ninkaaga. haddaba qofkaad u khidmeynaysid qofku doonaba ha noqdo, waxaad niyeysata Allah subxaanahu wa tacaala ka niyeysata waad ka baridaa inuu ajar iyo xasanaad kaa siiyo khidmadan aad samaynaysid, khidmadan aad qabanaysid iyo dhabarkan ku xanuunayo oo ku xanuunayo raggan walaalada ah dartooda. haddaba walaalihii muslimiinta ah waxaan ayagana ku boorinaya oo xasuusinaya inay u duceeyaan walaalahooda muslimaadka ah, lianna jikada ay ugu gubanayaan iftaarkii saxuurtii ayay u diyaarinayaan biidni illaahi alkariim. gabdhahan walaalada muslimaadka ah waxaan ku boorinayaa ama xasuusinayaa inay Allah subxaanahu wa tacaala niyada u furtaan oo ay niyeystaan waxaan ay qabanayaan in Ilaahi subxaanahu wa tacaala ka abaalmariyo jazana ka siiyo. waa hubaal Allah subxaanahu wa tacaala uu ka siinayaa, bal ka warna adigoo walaaladaha muslimaadka ah u diyaarinaysa iftaar, hubaal ajarkaaga uu weyn yahay. insha Allah tacaala niyeyso inuu Ilaahi subxaanahu wa tacaala ajarkaa siiyo. السلام عليكم.